بسم الله الرحمن الرحيم دمان umada Soomaaliyeed waa salaamaya meel walba ay joogan waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo xeerka doorashooyinka ama xeerka asteenta iyo daadajinta kuraasta golaha shacabka xeerkaas oo aan walaac badan ka muujinayo oo ah xeer ka soo horjeeda dastuurka ku meel gaarka dawladda federaalka Soomaaliya iyo xeer iska hor imaanaya asaga iyo in hanaanka lagu saleeyay ee tahay hanaan ka soo horjeeda sidoo kale dastuurka xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 22 qodobkaas oo sheegayo xaqsiinta muwaadinka qaybgalka siyaasadda oo dhahayo muwaadinka wuxuu xor u yahay in la doorto asna wax doorto waxaana lagu saleeyay xeerka qaab qabiilaysan taasoo muwaadinka ka soo horjeedo dastuurka sidoo kale hanaanka lagu 4.5 ay ognahay inuu yahay hanaan aan ahayn dastuuri oo yahay hanaan ku heshiiday bulshada heshiis aanan ahayn mid qoran laakiin looga baxayo marxalad markaas jirtay ama عقبات سياسية دو مركز جرت حير كان وحير قرن وحير عدينا إن أو دورشة قرن كأما دورشة الصومالية نوع تهاي أما قاب كلو مرايو شيء جايو مركب وحنو أرجنا إن تهاي مد لغو شرعيين يا أما إن nidaamkan 4.5 ka taasoo ah mid ka soo horjeeda dastuurka ayadana oo nidaam 4.5 dastuurku ma qorna laakiin sharciga doorashooyinka wuxuu ka dhigayaa mid sharciya waxaan sidoo kale qodobkan wuxuu sheegayaa in sida ognahay doorasho qof iyo cod ah waxay u baahan tahay in diiwaangelin la duwan geliyo dadka ama bulshada in shacabka la duwan geliyo iyo waxay u baahan tahay in la tiro koobo taasoo lagu saleynayo tirada bulshada kuraasta golaha shacabka waxaana noo muuqata inayna suurtagelaynin in waqtiga la duwan geliyo shacab in la tiro koobo xeerkan wali waxa nooga muuqda inuu yahay qabiyo xeerkan wali waxa nooga muuqda inuu yahay qabiyo ma cadeynayo deegaanada ay heestaan nimanka argagixisada ah waxa laga yeelayo sidoo kale wuxuu ka soo horjeedaa nidaamka federaalka oo sida lagu saleeyay ama qaabka lagu saleeyay ee tahay qaab dawladii dhexe ahaan ah oo 18 gobol ayaa la dhigayaa kuraasta taasoo ka aanan ahayn qaab federaal ah hadii qaabka federaalka waxa doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay in 10 heer degmo ay noqoto laakiin hadda waxa laga dhigay heer dawlad goboleed taasoo aan u aragno inay dastuurkana ka soo horjeedo federaalkana la dagaalamayo haddii suurtagali weedo heer degmo in laga dhigo kuraasta la dhigo waxay noqonaysaa heer dawlad goboleed in laga dhigo annagoo og kooxdan talada dalka heedo ama xukuumadda hadda jirto annagoo og in ayna diidan yihiin ama ka soo horjeeda ama dagaal ku hayaan nidaamka federaalka meeshana waxa nooga muuqata in doorashada qaabka lagu saleeyay ee tahay qaab shakhsiyaad lagu adeegayo xeerkan wuxuu ka soo ma cadeynin gobolka Banaadir oo xaqsiintiisa ama in gobolka Banaadir shacabka gobolka Banaadir xaqooda ma sheegin taas beddelkeeda waxa la sameeyay in kuraas laga soo xawilo gobolka kale gobolka Banaadir lagu qabto ayadoo gobolka Banaadir xaqiisa ama wax xaq oo ku kuraastan oo ku lahayn sidoo kale sharcigan ma sheegin ama sharciga aan dhahe waxa iska hor imaanaya qaabka
gobolada waqooyi xildhibaanadeeda lagu soo xulaayo waxay ku imaanayaan hanaan erga ah sidoo kale xildhibaanada kale oo golaha shacabkana waxay ku imaanayaan hanaan shacabka ay u soo codeeyaan taasoo aan iswaafaqeen iskana hor imaanayo oo ah laba doorasho oo kala duwan ah waxaa markaas nooga muuqata sidoo kale waxaa noo muuqata hanaanka loo maray ama tirada ama asteenta kuraasta ay tahay hanaan aanan suuragelaynin oo dad gooni ah u danaynayo ama xukuumadda ahaata ama ciddii soo markaas guddigii loo xil saaraha ahaato waxaa kow muuqata qodobka koowaad oo muuqda waxay tahay in lambarada kuraasta loo yeelay ay tahay nambaro shakhsiyeed oo lagu saleeyay xildhibaanada hadda jooga ama kaararkooda ay dhigooda lagu saleeyay taasoonan aanan ahayn ama kursigaas oo ahayn kursi furan oo cid walba ka qayb gali karta cid gooniya oo u xiraya sidoo kale waxaa ognahay gobolka Gado in dawladda federaalka ciidamada iyo haddana waxaa sharciga 19 kursi oo waxay taalaa Garbaharey la dhigay kuraas ay leeyihiin ama deegaan doorasho ay lahayn ayaa waxaa la geeyay deegaan doorashada meel kala tahay waxaa la geeyay Garbaharey taasoo noo muuqata in sharcigan awood siinayo xildhibaanada hadda ama soo xulay ama guddigan xildhibaanada ah oo sharcigan soo diyaariyay awood siinayo inay ayaga jooska ama doorashada ay leeyihiin ee kursigan meesha raba u xawila karaan sidoo kale dawladda xukuumadda tiimkan hadda haya talada ee ayagana noocadahay sharcigan doorashada inay lug ku leeyihiin ayaduna u adeegaydo markii Gado kuraas 19 kursi la dhigay Garbaharey laga maaragtay 12 la dhigay Bu'aale Jubbada taasoo noocad marka tusaale nooga cad in dawladda sababta ama ay tahay ama sabab siyaasadeedsan ay tahay sababta ay u geeneeday ciidamada ay Garbaharey ugu daabuleeday ay tahay ayna rabtana inay ayadu doorasho ayada ay hanaan ayadu ay raali ama ay soo camcamsatay ay rabto inay ku soo laabato dana shakhsiyeedna sharcigan doorasho u adeegayo oo laga fiirin dan qaran ayaa nooga muuqata ugu dambeyntii sharcigan wuxuu abuuri karaa xaalad qallaaso ah wuxuu abuuri karaa isku dhacyo bulsho wuxuu abuuri karaa xaalado cusub waxaan leeyahay marka ama dawladda dadka xukuumadda haya ama raggan soo diyaariyay sharciga waxaan leeyahay ama xukuumadda hadda joogta waxaan leeyahay ma suurtagaleedo ama ma in suurtagaleedo inaad doorasho ay ka rabtiin oo bulshada ku heshiinin asoo qaab dana shakhsiyeed laga leeyahay ama wada ku soo laabataan ku raasanaydin in ma in suurtagaleedo in shacabka Soomaaliyeed ay kraali ka noqdaan waxa talada soo jeedina waxay tahay doorasho qof iyo cod waqtiga ma dhici karto xaalad jirto awgeed xaalad amni haday ahaa lahayd xaalad dhaqaale haday ahaa lahayd waqtiga noo saamixinay xukuumadda haysato waxaan ku talin lahaa si degdeg ah in la sugu waco dadka stakeholderska ama saamilada siyaasadeed laga wada tasto aayaha Soomaaliya halka loo jiheynayo doorasho nooca noqonayo sidoo kale golaha shacabka waxaan u jeedinayaa doorashadan danaha shakhsiyadeed ama danta gaarka laga leeyahay ama xeerkan in la ansixin ka foojignaataan bulshada ininka matashiin si dhaba aad u eegtaan waxa ka socda ama si dhaba u eegtaan xeerkan danihiisa shakhsiyadeed laga dalneeyo waana mahadsantiin dhamaantiin